السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا channel ما فرق هدي أعتبر كويت أصاب وقت السنة وعن كعب السنة أنا لايك سبسكرايب الشرط تنويد عجوز هدي أتهاي دتك هرن للجوجي وأكون مثلا تعال للجوجي تعال للجوجي هنقول له إن ديرجنت نوصل مسيد ما أنت محرر أنا سوق بيو ما أنت محرر أنا سوق بيو أكون كي هذا كهر أنا سوق بيو فن next سلو جود بيو challenge تيجا أكون تي هذا كهر أنكسمي أنا رامات أنا أنكسمينه ما أنكسمين دونا باي أوت وأمريكا كويت باي أنكسمين أنا كونكاس sida la sheegay waxay u qaatay dhowr bilo u qaadatay phase 1 iyo phase 2 tusaalaha hadda kor markaan YouTube soo dhigay waxaa jirtay dhalinyarada qaar oo ila soo xiriireen oo committee badan ka bixiyeen committee ugu qurux badnaa hadda aan xasuustaa haddii aan isku dayo committeegaas inaan akhriyo akoonkaas qaybtaas ahayd waxaan soo gudbiyey waxay ahayd 3 week ka hor aan soo geliyey YouTube-kayga soo geliyey marka maxaa dhacday dadka committee badan ay ka bixiyeen committee-ga oo soo jiitay wuxuu ahaa committee-gan ustaad muuqaaladaada waa kuwa dhiirigeliya waa qof ka mid ah dhalinyartan ugu xiran dhanka YouTube-ka marka waxyaalaha aan u sameynayno muuqaalada aan u sameynayno oo aan u soo gudbinayno waxay tahay inaan helno dad waxaan ka hadlayno oo na dhageysto oo wax ka sameeyo oo lacag ka sameeyo oo horumar kale ka sameeyo taas waa waxaan rabnaa mar walba waa sugaa أنت آدم صادرين أنت آدم صادقين كمان قف كسجوا أنت آدم صادقين قف كاس وحواي مال لرو مدنيا هاي أوكي تاس وحي محل هاي مقالك أو زي ديرجنت بدي وسميه one bear يو less محل هاي تريد أيام وكو تاجيرية وحوليه one bear one less تريد أيام وكو تاجيرية معناه وحكي كنا جنتاي halka beer aan ku tireed gareysto oo ah lacagta aan ku tireed gareeyo GB way iyo lacag iyo sida aan u manage gareeyo qasaaraheena kulli intaas oo ka hadlay mid kale oo xisaab badneed oo comment-ga laga bixiyo waxa kamid ah sida tan hadda ustaad wuxuu dhahay ninkan wuxuu leeyahay ardaygan wuxuu leeyahay ustaad waxaan ilaahay kaga rajaynayaa inaan noqdo guuleystaha akoonka oo ku guuleysan doono next time haddana noqon guuleystay bisha hore insha Allah bishaana noqon doonta haddii ilaahay waxay loon inaan like iyo share iyo subscribe wax juntid ardaygan kale wuxuu dhahay nagu xiran dhanka Facebook ama dhanka oo YouTube nagu xiran wuxuu leeyahay ma sha Allah samarkaada intaan la eg halkee ka keentay samarka intaan la eg ka keentay su'aashaas markaan aan ka jawaabo tusaalahan samarka kale la eg waxaan ka keenay lacago badan aan suuqan galiyay aan ku khasaaray marka that's why aanan rabin inaan more khasaar aan sameeyn marka insha Allah aadna waa sameyn doontaa haddii ilaahay idmo waa heli doontaa samarkaas wax weyn ma ahan 7 bilood ayaa ku gudbisay phase 1 phase 2 صح 7 bilood phase 1 ku gudbiyay laakiin maanta maxaa dhici karo 7 bil waa la dhaafay bish 8 hadda mara okay 8 bil kadib maxaa dhacay dhankaas waxay ahayd commentida laga bixiyay marka insha Allah videogan waxaan rabaa commentiga qurux badan aan ka arko si aad u noqotid guuleystaha oo ku guuleysan doono akoonka kale oo xiga haddii ilaahay idmo marka waxaan imaan doonaa dashboardka akoonkii aan ka hadlay ayaan rabaa dashboardkiisa inaan tago dashboardkiisa markaan tago aan isla fiirin doonaa wax ka dhacay maanta waxbaa ka dhacay maanta maxaa ka dhacay okay akoonkii aan ka hadlay dashboardkiisa waa kana dashboard siwakna account number waxa u dambayso numberkaas 892 dib malahan numberka u dambeeyo numberkaas way okay dashboardkii waxa ku qoran 10,000 loss iyo wax aad ii socdo volatility loss ma jiro trading days wax ma jiraan okay back and kan tanaas ka xir mu baani intaan dashboard intaas ku qoran dashboard waxa ku qoran maanta 10,000 inaa haysano 10,000 aan gudbinay account-kii 10,000 aan gudbinay 10,000 aan gudbiyay 10,000 inaan haysano oo wili wax tireedna aan haynin wili wax faa'iidana aan haynin wax tireedna ma soconin oo maximum loss loo ogol yahay 10,000 maxaa maximum loo ogol yahay 800 daily loss loo ogol yahay 400 okay waa intaas waa inta dashboard ka muuqdo okay maxaa xiga what's next waxaa xiga wax kale ma ahan halkan payout markaan ku dhufto wala halka maxaa ka muuqdo biyaas markaa ku dhufto waxaa muuqdo waxaa diyaar ah inaan withdraw ku sameeyo 131 okay waxaa diyaar inaan la baxno 131 okay 131daas inta laga keenay 131 waxay ka imaatay account numberka hadda aan ka hadlay account kala jiro oo lacag la baxay that's not important account ka hadda u dambeeyay kan hadda numberkiisa u dambeeyso oo hadda aan ka hadlay
waa 892 numberka account ku dambayso numberkan waa fiirin doonaa bilaahid numberka account oo processka no request yet ay noo qoran tahay oo 100 ay noo taalo waa lacagtan oo halkaan noo taalo lacagtan halkaas noo taalo still ma dooranin ma dalbanin lacagtaas rabaa inaan dalbano bilaahid marka 6 bil 7 bil hadii nagu qaadatay inaan phase 1 iyo phase 2 aan gudbino ama trade ka aan soo gudbino lacagta lagu gada meeqa ahayd fan next lacagta lagu gada website maxaa la dhahay account ka meeqa waay fan next lacagta account 10,000 meeqa la gada tusaale hadda asla fiirin doonaa account 10,000 lacagta la gado kadib waxaan fiirin doonaa lacagta inaan faa'iido ku jirno inaan khasaaro ku jirno okay challenge marka imaatid hoos imaatid halkan fan next marka imaan website kiisa account tusaale ahaan 10,000 waxaa la gadaa account 10,000 waxaa la gadaa stellar light kaas dooro 10,000 waxaa la gadaa $59 okay it's good $9 la gadaa $9 marka haddii maanta aan la baxno 131 ay noo dhiman tahay $9 ka ku gadnay faa'iido ma qabnaa mise khasaare qabnaa taas marka commentiga xaggaada waay marka insha Allah waxaan sameyn doonaa sida aan u soo gudbiyo account-kan markaan phase 1 iyo phase 2 aan gudbiyay shaashad waxaan soo saari doonaa anta trade aan qaatay ayaa shaashad soo saari doonaa kadib waxaan la fiirin doonaa sida xaaladda ay tahay maasha Allah shaashad waxaan soo saari doonaa telefonkiisa shaashad soo saari doonaa halkan waxaa ku qoran tusaale ahaan halkan waxaa ku qoran September 12 September aan trade qaadanay oo $40 aan ka faa'iidnay 15 trade kala qaadanay oo aan ka faa'iidnay 27 16 trade aan qaadanay waxaan ka faa'iidnay 21 23 trade aan qaadanay waxaan ku khasaarnay 81 oo ah 1% wax keer isla 23 trade kala qaadanay waxaan helnay 1% okay it's good kadib 25 trade kala qaadanay waa 51 29 oo bishii dhamaadkeeda ahayd trade kala qaadanay waxaan ka helnay 31 marka waxaan ka sameynay 164 kow labo saddex afar shan lix toddoba trade halkaas ka muuqata toddoba trade iyo taariikhdeeda insha Allah kulli halkan aan soo saari doonaa marka waxaan sameyn doonaa withdraw aan ku dhufsan doonaa withdraw marka ku dhufsano 161 marka helno halkan 161 halkan taalo waxay noo imaan doontaa qaybtan kale oo zero oo pending account qaybtaas kale waa qeyn doonaa lacag la bixi waay qaybtaas markay imaato kadib process waxaan taaban doonaa pay out request aan taaban doonaa okay taas door maraan ka sameeyay video saddexaad waa pay out ka sameyn doono marka waxaan rabaa fan next inaan isbuucan oo video ugu dambeeya aan ka sameeyo kadib aan u guuro oo fan bib iyo FTMO meesha loo bato insha Allah ayaan ka sameyn doonaa broker kale oo challenge kale aan haystaa jiro oo aan gudbiyay oo laakiin lacag sameeyo kuwaas kul marbi inaan hadda aan ku degdego laakiin kuwa dhalinyarta ay rabaan inaan soo gudbiyo duulayad halka marka pay out request aan sameeyo kadib waxaan dooran doonaa account numberkii aan dooran doonaa kadib waxaan ku dhufan doonaa next markaan ku dhufto halkan waxaan ka dooran doonaa USDD network waxaan dooran doonaa TRC20 marka waxaan dooran doonaa addresskii halkan igu save garaysan dhowr mar aan fiiriyay addresskii waa saxsan yahay kadib waxaan ku sameyn doonaa submit okay submit aan ku dhufan doonaa ay agree aan leenahay halkan waan riixi doonaa kadib process aan leenahay process markaan dhahno maxaa dhacaya marka process markaan waxaa dhici karo inay noo soo diraan emailkii oo ah OTP-ga inay emailka noogu soo diraan emailkaasaan rabaa inaan ku dhufto si u dhaqsiya badan si aan u yareeyo videoga waqtigiisa aan ka faa'iideysto marka videoga aan ka faa'iideysan doona OTP-ga fan next way noo soo diraan waa kana halkan u yaala numberka ay noo soo diraan halkan gelin doonaa numberka waa 61 4 marka waxaan ku dhufan doonaa submit maxaa dhaca marka pay out-kii way soo guurtay intay soo guurtay qaybtii bandingka marka bandingka markay soo guurtay maxaan ka rabnaa marka inaan lacagtan helno within 24 hours maanta jimco waaye haddii imaato okay it's nice waa xilliga duhurka la joogaa waxyara ka dhiman salaada waa 11 iyo 58 oo agtiida ah marka video intaan dhameystirin waxaan isku dayi doonaa markuu pay out-ka lacagta ii imaato oo arko oo Binance-geeda kusoo dhacdo waa kusoo diri doonaa waa kusoo xijin doonaa kadib waxaan leeyahay do it wala halkaas waxay noqotay processkii zero banding ku jirta marka waxaan ka rabnaa hadduu ilaahay idmo
inaan ka helno videogan. ما شاء الله أنا صولت wax kale ma ahayn waxaan sugaynay buyoutkii wati aan sameynay markay ahayd 12 markaan sameynay waa kan hadda message-ku ii soo direen laakiin waxaan soo saari doonaa halkaan soo saari doonaa shaashada waxay ii soo direen 1 hour before marka waxay ka dhigan tahay 14 inay soo direen 14 kana waxa way 2 saac muddo 2 saac gudaheed way soo direen cadeyntina waa tan halkaan ay saaran tahay marka insha Allah waa intaas marka haddii aad ka fahantay wax un Funnelx uu shaqeeyo iyo sida buyout loo sameeyo iyo sida oo comment loogu gudbiyo intaas aan soo bandhigay marka wixii taladaada aad tusaale ahaan ama wixii adiga aad ku haminaysid in laga hadlo tusaale ahaan dad badan ka soo hadlay FTMO Funnelbib dad badan wax soo qoray kulli commentiga ku soo qor meesha loo bato ayaan ka soo hadli doonaa Ilaahay idmo dhamaantiin waxaan idin leeyahay meel kasta adduunka joogtiin waa ku mahadsantihiin ku xirnaanshaha ugu xirantihiin waxaan noo ballan ogeysiis shirkadda duulimaadka Wabay Travel oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kana mid ah shirkadaha ugu adeeg wanaagsan waxay ugu bishaaraynaysaa dhammaan macaamiisheeda ku kala sugan daafaha caalamka in shirkaddu ay xoojinayso tayeynta adeegyada ay u hayso bulshada adeegyada shirkadda idin haysana waxaa ka mid ah adeegyada xajka iyo cumrada oo tayeysan fiiro gaar ah عمرده وفول باكج waxaa la socda tikidyo go ambaga hoteelo 5 stars ah basas casri ah loogu talagalay macaamiisha inta ay ku sugan magaalooyinka Makka al Mukarrama iyo Madiina al Munawwara waa 15 maalmood gudahooda waana adeegyo raqiis ah oo ku raali geliya cidii doonaysana intaasi shirkadu ay uga sii kordhinaysa Wabay Travel oo xiriir la leh shirkadaha caalamiga ee duulimaadyada diyaaradaha sida Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Emirates iyo Ocean Airlines waxay kordhinaysaa hufnaanta iyo tayeynta adeegyada macaamiisha iyadoo lagu adeegayo hab fudud oo lagu qanci karo lehna dal iyo dibadba duulimaadada gudaha waxaa ka mid ah Hargeysa, Dhuusamareeb, Garowe, Baydhabo, Kismaayo, Beledweyne, Gurceel, Caabudwaaq, Gaalkacyo iyo Doobley duulimaadada dibadda Nairobi, New Delhi, Turkey, Uganda, China, Malaysia, Pakistan, Ethiopia, Eritrea, Masar iyo Djibouti waxaa sidoo kale adeegyada ka mid ah in laga soo xajiyo lagana soo cumriyo ehelada waalidiinta geeriyooday iyadoo loo diyaariyay culimaadudiin aqoon durugsan u leh adeegyada xajka iyo cumrada waxa sidoo kale macaamiisha si heer sare loogu adeegi doona inta ay joogaan dhulka barakaysan sida hoteelo 5 stars iyo gaadiid waxaana kugu diyaara shaqaale loo carbiyay u adeegista dadka haddaba shirkadda waxa ay xarun ku leedahay Waaberi Taleex Daarul Tawxiid Apartments ka soo horjeedka Xayaat Mall ama kala xiriir telefoon nambarada shaashada ku qoran mahadsanid
ما شاء الله أنا صلاتي وحن صلات وحكي لما هن وحن سجيني بيعت كيوتي أنا سمعني مركي أحد لبي طوان كم كان سمعني وكان هذا مسجد كويس صدرين لكن وحن صار دونا هل كان صار دونا شاشة وحي صدرين 1 hour before marka waxay ka dhigan tahay 14 inay soo direen 14 waxa way 2 saac muddo 2 saac gudaheed way soo direen cadeyntina waa tan halkan ay saaran tahay marka insha Allah waa intaas